qaar ka mid ah kooxaha ka ciyaara garoonka weyn ee LMC Stadium ee magaalada Burco ayaa taageeray habsami socodka koobka ka socda garoonka weyn ee LMC Stadium waxaana ku taageerin sidwaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Togdheer Kaysa Yuusuf Cilmi suuqa keenay aniga iyo wasaaradda ciyaaraha iyo dhammaan macallimiintii intii matalaysay horta waa aniga oo Subeer Jaamac Axmed ah macallin u ah kooxda wasaaradda macallinta tamarta halkan waxa ay taagan dhowr macallin oo ka socda 18 kooxood ee groupka iyo wareegga caadiga oo dawlad socday taageersanaana horta inta waxaan ku soo gabagabeynayaa marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ka hadlayaa horta inay wasaaradda ciyaaruhu halkay marka hore taagneed iyo halkay maanta taagan tahay inay wada u jeedeen gobolka Togdheer in badan bay inay wasaaraddu ka jiiftay laakiin imka muddadii sanadka ahayd iyo barka ahayd la soo magacaabay Sidwaha Kaysa Yuusuf Cilmi inay wasaaraddu aad iyo aad bay u soo kacday waad aragtaan waxa ka dhacay gobolka Togdheer haday garoomo noqoto haday wareeg noqoto iyo haday nidaamka kooxeedba noqoto inay wadaan nahay 18 kooxood ee wareegga ogol wasaaradda hoggaansan waxaan soo dhaweynaynaa taageersannahayna wareeggan ay ku dhawaaqday wasaaradda ciyaaraha Somaliland iyo ciyaarahaba ee gobolka Togdheer waxaan leenahay annagu haddaan nahay 18 kooxood wareegga waan taageersannahay una noo socon doonaa wixii ka khaldan ee ka dhimanna insha Allah taala waa buuxsanaa arrinka xiriirka dhamaantii waan wada doonaynaa waa arrin ayna ka simeeyeen dhammaan kooxaha gobolka Togdheer oo dhan annagu waxaan jecelnahay in nagu dhacdo ciyaaruhu si cadaalad ah iyo si wanaagsan iyo si qurux badan taawna laga hor dhacay mooyaane annagu taa ku dhadeedo taageersannahay wasaaradda ciyaaraha guudna waxaan ka codsanaynaa in xiriirkana ay noo soo diisho noo keento wareegeygana aan bilaabano halkii nooga sii socdo wixii bajada gobolka Togdheer lagu talagalayna in loo soo badiyo gobolku maadaama uu gobol weyn yahay caasimad ku-xigeentii uu yahay in lagu soo hagaajiyo waa aragtida wareeg gobolada kala si fiican bay uga dhacday annagana kaygana si fiican bay nooga dhacday insha Allah taala waxa jira kooxada ka soo horjeeda wasaaradda niyo hore loo yiraahdo garaac kulay lu kaliya toma dhatiyo maadaama 18 kooxood nahay annagu 3 kooxood iyo 4 kooxood iyo 5 kooxood toona u joojin mayno waan horaan ugu soconaynaa wixii naga khaldanay naga dhimanna waan isku dib baan isku noqonnaa waan sameysannaa insha Allah taala inuu markaa wax ku soo gabagabeynaa aniga dhammaan kooxahan garabkayga taagan iyo intana afayeenka u nahayba 18 kooxoodba marka horena go'aankayga waan cadeyn waraqaana waan ku cadeyn saxiixaana waan ku cadeyn imikana anagu saxaafadda hortaagan baan cadeynaa in wareegaas uu noo socon doono insha Allah taala sida ugu dhaqsiga badan loo furi doono dawaanan soo dhaweynaynaa Sidwuhuna wada aragtayna dadka indhahooda oo macallinad garoonkii ciidooda hoggaaba imka waxa laga dhigay garoonka ugu qurux badan ee Somaliland bilicdiisa wada aragtaan kooxaha nidaamka imka u dhisan wada aragtaa isbedel weyn baa muuqda marka hadda dhalinyarada waxaan u sheegaynaa qof dantiisa wata niyaanu idin ma jahabaabinayo qof dantiisa wato diyaaradiisa kicsanaya yaanu idin ma jahabaabin adduunka waa la isku dangaaray inta idinku la isku dangaari lahaa idinku dantiina gobolkiina dantiinaba idinku hormariya aan raxiim marka koowaad waxaan aad ugu mahadcelinayaa horta saxaafadda qaaliga ah ee codkayga baahinaysa marka labaadna waxaan u mahadcelinayaa macallimiintan garabkayga taagan ee sharafta iyo qiimaha iyo qaayaha badan ka damqanaya maanta maxaan ku dhahay dhibaatada ka jirta gobolkeena Togdheer marka saddexaadna waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ciddii danaynaysa baaqaygan ayaan mahadcelinayaa inta haddii aan ka imaado horta waxa weeyaan in badan waxa la hadalhayo carabka lagu dhuftay oo muddo laga soo sheekeynayay 2 bilood adigu ku dhawaad tartanka Togdheer Cup tartanka waxaan u malaynayaa horta in ay gacmo badan ku jiraan gacmaha badan ay ku jiraan ay ku ka tahay kooxaha tartanka ku jira sheeganayeen kooxaha tartanka ciyaarayeen ay yihiin waxa weeyaan horta marka koobaad tartanka caqaleynta laga daayo tartanka Togdheer Cup si fiican baa loo soo abaabulay si fiican buu socday si qurux badan buu loo bilaabay waxa weeyaan tartan si sharaf leh lagu soo bilaabay buu ahaa si sharaf leh u socday waxaan u mahadcelinayaa marka koobaad Sidwaha Kaysa Cilmi Yuusuf rumahantii aan ku xoojinayo intii macallimiintii labadii macallin iga horeeyay ay sheegeen ay ka hadleen
isuduwahaas markii uu gobolka yimi iyo markii hore waa la kala garanayaa ishii caafimaad qabta wax arkaysaa maanta way kala garanaysaa de waxa weeyaan de garoonka Alamsi Stadium sidoo ahaa systemka loogu ciyaari jiray de garoonka ciyaari ka jirto ayaa kooxo ku dhinac calaamadeyn jireen de garanaysa baantana heer waxa la marayaa ciyaar kasto ka dhacaysa amba koox weyn ahaato amba koox yar ahaato waxaan aaminsan horta gobolka inaan koox yar ka jirin in lacag lagu daawanayo waa de title u gaarsiiyay dhal ciyaartooydii gobolka magac iyo maamuuska ku lahayd in lacag lagu daawado waa tartan waa heer u gaarsiiyay isuduw waxa weeyaan sidaa uu macallin ka dhawaajiyay horta isuduwa hadeynaan ku taageerino inagu aynaan qarab qaban oo aynaan wuxuu noola imaadaba aynaan ku taageerino aynaan kula shaqeynin wax alla ila xusurta galiya horta isaga ma jiraan marka koobaad horta waxaan aanu soo dhaweynayaa ayaan ku raacsanahay xiriirka aad baan u soo dhaweynayaa anigu xiriirka kubadda cagta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waana soo dhaweynaynaa diyaarna waanu nahay in telefishinada madaxa bannaan ee reer Soomaaliland aba degayga Soomaalida ba ka shaqeeya waxaan leeyahay iyagana kulli inay live ka dhigaan ay baahiyaan taasi waa mid deemgaranaysan naga go'aano 22 kooxood baan ka siman lahay in xiriirkii la helo iyo maxaan ku raayay wasaaradii sare ee sportska la helay gobolka timaado wareegu uu nagu socdo sidii awdal ka dhacday iyo maxaan ku raayay sool iyo maxaan ku raayay iyo maroodi jeexba taa horta waan ka midaysanay hadaan nahay de macallimiinta gobolka Togdheer iyo hadaan nahay ciyaartooyda gobolka Togdheerba tartanku laakiin tartan la joojinayo ma tartan galgiis ma naga nooga sii soconaya waxaan ku yara darayaa anigu tartankan imika Togdheer Cup ee bilaamay maalintii Axadda nasiibkiisa laba jeer baa la tuuray waxa la yiri 12 kooxood way sii baxayaan markii 16 kooxood ay doonayeen wasaaraddu waxa weeyaan waxa inta 9 kale kooxoodna isreebreeb bay soo galayaan waad garanaysaan 12 kooxood markay sii baxaan halka maxaa laga doonayaa 4 kooxood in 9 kooxoodna ay ka soo baxayaan 4 kooxood ta macallimiinteeda halkan wada taagan gabay ahaantiba waxaan ahayn ragii sii baxay 12 kooxood de haddana anagu eegayna sharafta gobolka sumcadda gobolka ta wasaaradda gobolka ta wasaaradda sare waxaan anagu aan isku afkaranay inaan u tanaasulo ku eegay sii baxay xitaa haddii aan ku horeyno tartanka ka hareyno inaan horta gobolka Togdheer aan sumcadiisa sharaftiisa aan kor u soo qaadno ilaahayna waa nagu guuleeyo waa nagu ogolaanay garanaysa iyadoo kooxo badan ay garanaysaa de maanta de gruuba naga dhacaan kale waxa weeyaan ta aad iyo aad baan u hambalyeynaya wasaaradda sare wasiirka boosmare agaasimaha xiriirka waxaba aad baan horta u hambalyeynaya waxaan leeyahay horta wasaaradda gobolka Togdheer marka tan gobolkayga aan ku yimaado horta way dadaalaysaa si fiicanna way u dadaalaysaa waxaan leeyahay laakiin caqaladaynta ha laga daayo oo ha laga daayo bargumbaadada gobolkana ma shamcadiisa iyo sharaftiisa inaga u hayna waxa weeye inagu aan gudaheena wax kasta ku dhameysano waxa weeye wax walba protocol iyo system bay leeyihiin maalin walba adeenu saxaafadda taagnaanaynu gobolkeeni garanaysaa aan hoos u dhigno waa laga qurux badan yahay aan qoraalka gudbina waxaan u baahanay wasiirka aan u tagno waa tan Hargeysa Yurub kuma taaleed kuma taala Jarmalka kuma taale waxaan ku tagi karnaa 3 saacadood waxaan leeyahay sumcadda gobolkeena aan kor soo qaadno garoonkii Soomaaliland u qurux badnaa bay noo dhisay wasaaraddu noo dhistay garoonka riyada ay ku xantaan ciyaartooydan galbeedku waxa weeyaan garoon baynu haysanaa fiican garoonkii si fiican baroogiin loogu dhigay wasaaraddu si fiican u shaqeynaysa ayaanu haysanaa midda kaliya kooxu ka cabanaya waxa weeyaan garsoorkana waxa weey la hagaajinaya xiriirkuna way noo imanaya insha Allah sidoo daysudu ka dhawaajiyay waxa weeyaan marka hadalkayga ma doonayaan inaan dheereeyo waxaan ku soo gabagabeynayaa marka koowaad xiriirka waanu taageersanay inuu imaado tartamadii ka dhacay awdal iyo sool iyo maroodi jeexna inuu Togdheer ka dhacana waanu taageersanay waanu soo dhaweynaynaa waxa weeyaan laakiin wixii laguma doono maxaan ku raahay siyaafo qaldan waxaan ku soo gabagabeynayaa 12 wasaaraduna kulay wasaaradda sarena ay budgetka iyo dhiirigelinta dhalinyarada mar walba ay la garab taagnaatay gobolada kale gobolkan la sintana waa mid aynu u baahannahay waa mid dhalinyaraduna u baahan tahay in gobolkana hoos loo soo eego maanta waxay maroodi jeexasho wuxuu awdal helo Togdheer inay heshaa waa wax garanaysa xaqa waxaan weeyay wasiirkan waxaan leeyahay baaqan u diraya waxa weeyaan Togdheer waxay maanta ay tamanaysaa ay doonaysaa waa gacantaadii waxa weeyaan kulay wadi lowday baan leeyahay wasiirka aad baan horta kugu hambalyeynaya in lowdana waxa keenaya shaqada aad iyo aad kugu badan midaan qiilka laga dhiganayo la leeyahay wasiirka mu furin maalinta dhaweeytiro labaad siyaabood baa ku dhacay wasiirka waa marka koobaad nabadeyntii buu joogay marxaladii ugu xumeeyay ee ka dhacday Elafweyn ayuu joogay taa markuu ka yimina giiri baa dhacday Allah u naxariistee wasiirka arrimaha gudaha hooyadii oo dhimatay ayuu maxaan ku dhaayay tacsiideedii haddana ka qayb galay waxa weeyaan marka doortaniyo dan baa iman karta madaxda mar walba inay ku ag taagnaato ma dantu way iman kartaa kan inoo furibada way isduweeni wasaaraddu ka mid yahay title-kaanu siino isaga badde way title-ku inaga mudan yahay haween marka hadalkayga waxaan ku soo gabagabeynayaa wasaaradii kulay diriishadiina waa la diyaar diriishadiina saaka way noo keentay waxaana yaalaan xafiiska wasaaradda ciyaaraha gobolka Togdheer waxaan leeyahay kooxaha ugu baaqaya
war gobolka aynu ka dayno caaran jafaynta ceebta aynu ka dayno waxyaabahan aynu kaga sheekaynayno waxa leeyahay nimanka kooxaha gobolada kale way nugu cadow oo gobolkeeni hoos u yeesayaan cadow nuguma ahay naga yeesayno gobolkeeni maanta markaan ceebteeni gudbino aan ceebteeni magaalada dhigdhigno iyaguna kugu soo farxayaan وما يسمى حويان مركا وحنا لا إنه قبل كنا عن تياتل سينو شرف عن سينو ماموس عن سينو وحنا هذا كي كسوق بجبينيا إن حرير كوي ما ضو سيدا قد خسيا بدل سو دنو شيء يسدون إلا ما أنت لا بريء سو قلنا إن ترتمد ترتم كي بده هراك داعي قبل هذا كنا سو شيء دينا إنه قرنا سامنا قبتنا دي أربعة هاي وريق لكن أنا سديد يتون كيا مع نصيب دمبلا قبني يمشرو وانا نكسر شيء نصيب دمبلا قبته لا بتشرو هران تناسلي مرتدحات كتناسلي منه halkan annagoo caafimaad qabna shirka kan isugu keenay macnihii horta ugu horreyn waxaan u mahadcelinayaa ilaahay awoodda u leh inaan halkan isugu nimaadno shirkan aan qabsano marka xigtana waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee uu gaadhwadeenka ka yahay mudane isduwe Kaysay Yuusuf Cilmi oo run ahaantii marka laga hadlayo xagga sportska ama gobolka Togdheer kaalin weyn ka qaatay sidaan ka wada warqabnaba macnihii hadday tahay dardargelinta dhalinyaradii kooxaha heerka koobaad heerka labaad ilaa heerka saddexaad loo oran karayo waa shakhsi macnihii heerkii kubadeed ee gobolka halku taagnaa wax badan kor uga soo qaaday wax badan ku soo kordhiyay hadday tahay garoonka iyo hadday tahay dhiirigelinta dhalinyaradaba hal iyo habeen la garab taagan sidii uu horumarin lahaa dhalinyarada iyo kooxaha u heelan inay macnihii mustaqbal fiican ka gaadho kubadda cagta كلي وزارة الدنيا عياره إن بدأ وحيكون هولناي إن قبضته ترتن عياره دحمر دونا ويكون ترتم دونا دمان كوها هير كوباد يقول كتقدر وكوكوبنا لبي لبعتهم كوحد وسير كنا وسوين سحيي يسدوا الدنيا عياره عند كل كدنيا هاني كوها هم بو حنسوبيني إنه ترتن كاسنو قبصامو أو نوجو قبصامو سيحب سمية أو نو ترتنا سيحب سمية وأنا كترتنا سوى ولا تنمية القاعد كتشرو لبي لبعتن كيف كوحدنا واحد عادي يسدوه لبعض شهر هرو نصيب قبتي لبعض شهر هرو نصيب قبتي بيجون كوحو كود الرالي هاي أيام معنيه نصيب كي دبلو بابي أو هولاد مقرن ساكوها قار كود كي ما الله دمي معنيه نصيب كيلو بابي نصيب كي صد هذا يسدوها وسارة الدنيا رضي عيارها قبل كتوق لرئيسه وقلتي وسارة الجود ayaa hadana markii saddexaad nasiib la qabtay oo tartankii si habsamiyo ku bilaabmay labadii casho horeysayna macnihii la ciyaara de kulli anagu koox ahaan anagu ku hadlaynaa afka 18 kooxood ee hadhay waxaan rajaynaynaa inuu tartankii sidii uu ahaa noogu socdo waxaana raali kaga nahay isduuha dhalinyaradii ciyaaruhu sidii uu noogu taliyo de kulli 18 kooxood macnihii waxa isku raaceen u malaynayeen inay khaladaad tahay iyo isduuhii dhalinyaradii ciyaaraha haystay marka kaliya hadalka waxaan ku soo gunaanadayaa horta xiriirka waan soo dhaweynaynaa muqbahiyaasha heerka caalamiga haday hoon cable tahay haday telefishinada madaxa bannaan tahay dhamaantoodna waan soo dhaweynaynaa xiriirka ka socda wasaaradda waan soo dhaweynaynaa kaliya anagu waxaan jecelnahay tartanku halku noo marayay iyo sidoo quruxda badnaa ay sidoo noogu qabtay inaan la qaadicin oo macnihii noogu socdo tartanka sidii aan u baahnay te kulay intaan halkan ku taaganahay waxaan maleynayaa waxaan nahay kooxihii ugu tunka weynaa ugu magac weynaa gobolka Togdheer marka anagu waxaan isku raacsanahay 18 kaygaas baa anagu isku afa aan ku mideysana inaan isduuhay Kaysay Yuusuf Cilmi wixii uu noogu taliyo aan ogolnahay wasiirkana waxaan gaarsiinaynaa tartanku noogu socdo si fiican laakiin gobolkii uu hoos loo soo eego wixii uu budget u baahan yahay kooxihii oo kale in macnihii wixii aan shahri ahayn teenu shahri laga dhigo oo kale oo laga warhayo marba xaaladda gobolka Togdheer haday halkay marayso marka waxaan rajaynaynaa kulli isduuha hadii la garab istaago oo kooxuhuna ay garab istaagaan dhalinyarada iyo sportska gobolka Togdheer uu maalinta ka dambaysa uu kor u sii kacayo haddana anagu garan mayno wax inuu sportsku leeyahay maalinta ka dambaysa inuu kor u socdo mooyee insha Allah guultan ka ballaaran waan rajaynaynaa waxaanu mar kale u mahadcelinaynaa isduuha dhalinyarada ciyaaraha gobolka Togdheer Kaysay Yuusuf Cilmi oo macnihii sportska gobolka halkan uu maanta taagan yahay ee aan laga noqon karin soo gaarsiiyay taafada sharafta leh salaanka dib horta 18 kooxood baan nahay أنا أفكر كل هذا لنا استيدو تمام كوحد بروح يدونيا كل ده استيدو تمانين واحد دونيا أنا أفرنين إن لوجون مستحية كل أنا قبل عقلة حمو يعني وقت طلباتني و يعني حريرك تينا جماعتنا أنا وعنا وتشعلوا ده أي ترتن كقبطان لكن إذا حريرك هو إن ده محي هذا أي كل شقيان معمول كوسارد ماذا يقول والله جماعتنا نوقف شقي
waayo iyagu waa xiriir madax bannaan wasaaradda gobolkii war haysa wasaarad baa maxay ka jirta waa inay taa xawaasha ka qaadaan oo ay ku shaqeeyaan waayo iyagu gobolkii midnimo joogaan waa inay Hargeysa ka imanaya marba meel laga keenayo samaad garan talabaad wasaaradda waxaan leeyahay halaga baxo xiriir baa wax qabanaya xiriir baa sanay gobol walba maxay sii walaashiisa gabsoorkiisa ha loo tababaro sibirnaan goboladooda ha loogu qabto taana taasaan leeyahay talabaad nasiibkan maxay xiriirku hadduu nasiib qabanayo nasiibkan uu khalad baan u arkan waayo kooxdii lagu furay baan ahay waana laga badiyay maanta dani waxa noogu jirtaa annaga kooxaan nasiib in loo qabto laakiin ma doonayna nasiib loo qabto waxaanu doonaynaa in sidii hore loo qabto sidii hore u socdo tartanku sidii u socdo sidii raalli aanu kaga nahay waayo haddii laga badiyay badiskayga faa'iidadiisa eegmayne ta gobolka ceebta ku ah waxa weeye marba nasiib isdaba joog la qabto samaad garan wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha gobolkayga aad bay maxay ahayd u soo kicisay deyntii isduuhan yimi samaad garan waa isduuwa bilaadana isba khalad waaleey isba khalad wuleeyay laakiin se waxa weeye inta uu faa'iido keenay baa khaladaadka ka badanaya bilaadankana labadaas loo qiimeeyo qofku faa'iido say advantage disadvantage haddii qofka advantage-kiisu bato waa tii loo baahnaa markaa isduuana waxaan leeyahay isduueen mar walba sidii aad u dulqaadan jirtay noogu dulqaadan jirtay u tanaasuli jirtay mar walba u tanaasul inamada kale iyaguna wareegga tartanka diidan war tartanka in laynoo furay inaga shalay doonayno media ka hadlayn maanta markii laynoo furay inay inagu diidnaan koleniyo waa mushaakilo obrorta orgiga ka weyn kaniyo waxaan leeyahay karka waxa keenay baan u maleynaya niyo tartanka la yiri 10 kooxood oo baa la soo saaraya anigu waa ku raacsanahay in eeda gobolka eedeeda la xadido 10 baad sheegtay 8 kooxood laga soo reebo ilaahu maan anigu ugu horeysa hal dhaahado waxaan leeyahay eedeeda hal la xadido sida gobolada 22 kooxood baan ku nahay Premiership-ka la fangareeyay European-ka 22 ahayn ka taana naloo xadido 10 kooxood iyo 8 kooxood labada mid baa laga soo reebo halkayga waxaan ku soo gabagabeynaya xiriirkuna noo yimaado TV-yada heerka caalamiga ina ha yimaadaan haday home cable tahay haday bulshada tahay haday mid walba ka tahay haday magaranaysa TV-yada madaxa bannaan all of you yihiin haday kuwa qaranka yihiin inay yimaadaan oo noo baahiyaan annaga jecel iyagana waxaan leeyahay koleniyo dawladda iyo kabareefadku mar walba ka bareefadka waa nin baa laho qiimo sar u ka hadlay gobolkana sidii gobolada kale ugu jabiyeen gobolkayga inay ugu jabiyaan oo ay tuuracaad ka geystaan baa wacan shirkadaha maxay ahayd sida Samtel maxay ahayd Telesom Dabshil Group iyagana waxaan leeyahay in gobolka Togdheer taakuladiina ka maqan waayo gobolada kale waa taakulaysan markay idinka la idinka xitaa shirkadaha socdaalku tartanada kale way ka qayb qaataan oo way taakulayaan laakiin se gobolka hadii dhan walba ka taakuladiina ka maqan kole dhalinyarada ugu badan baa isticmaasha social media lacagta idinku badan idinkaan idinku bixin waxay idinka soo noqdaan baa leen xabaal baan waxba ka soo noqonay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan taageersanahay 8 kooxood soo haray wareegan u diyaar ka baan nahay kowde waan soo dhaweynayna waana u hawlgaleynaa meel kasto cid kasto naga falgaranayso wareegan oo taageeraysa wasaaradda ciyaaraha dhalinta ciyaaraha waxaan leeyahay anigu wasiirka dhalinyarada ciyaaraha wareeg buu qabto budget ku soo bixiyay budgetku ku soo bixiyay wareeg waa la qabtay wareeg meel wanaagsan ayuu marayaa 4 kooxood ayaa ka baxay 4 kooxood waa 8 kooxood ka baawar weyn 4 kooxood ka baxay waxa leeyahay doonina ku furu doon yaanu ku rarin intii la soo magacaabay siduwaha cusub ee wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Togdheer waxa laga dareemay garoonka weyn ee LMC Stadium ee magaalada Burco dhaqdhaqaaq aad u fiican oo ku saabsan ciyaaraha gobolka Togdheer. Cabdi Qani Baafo.